wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa saacadihii la soo dhaafay kulan gaar ah la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dini kaas oo ka dhacay xeyndaabka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. Kulanka ayaa waxaa looga hadlay intii uu socday xaaladda siyaasadeed ee dalka, khilaafka ka taagan doorashada dhacaysa iyo shirka la filayo inuu dhex maro madaxda dowladda federaalka iyo maamulka goboleedyada ee uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo. Warar lagu kalsoonaan karo oo la helay ayaa waxay sheegayaan in James Swan uu madaxweyne Dini ka dalbaday in wax jawaab ah uusan ka bixin baaqa ka yimid madaxweynaha mudxuleedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee la xiriira shirka oo isugu yeeray madaxda. James Swan ayaa la sheegay in madaxweynaha Puntland uu sheegay in shirka looga hadlayo khilaafka doorashada uu ka dhici doono teendada Afisiyoni isla markaana shirka ay damaanad qaad u tahay beesha caalamka. Wararka ayaa intaasi waxay ku sii darayaan in madaxweyne Siciid Dini uu aqbalay codsiga uga yimid wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya iyadoona la tilmaamay in kulanka uu isfahan ku soo dhamaaday. Puntland iyo Jubbaland ayaa hore shuruudo dhowr ah ugu xiray ka qaybgalka shirarka uu ku baaqay madaxweynaha mudxuleedkiisu dhamaaday Farmaajo isla markaana sababay in shirarka ay ka baaqdeen walow haatan la filayo in madaxda ay ka wada qaybgalaan shirka ka dhacaya Afisiyoni kaas oo furmayo